السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كينان أكاديميك وأنا محمد فارح عشان كينا مانتو حكو سابسية دبل انتري بوكيبين وحانا هايساناينا أما كفحنا سيدي دبل انتري لو سمينايا تسالها ugu horeeya ee cashirka wadan kusoo qaadanay kan waa tusaale labaad oo ah in company-ga ay soo iibsatay gurigaas oo qiimihiisa ugu fadhiya 50000 oo cash ku soo iibsatay intaan u guda gelin qiimaha iyo guriga iyo waxa nooga baahan yahay tusaalahan aan dib ugu noqono wax yar si aan u fahanno debit and credit sidii isku qaataan markasta ee aragtid expense ama qarashaad ee company-ga ay gasho markasta waa inaad xasuustaa inaad debit side ku register garaysid hadduu company-ga uu revenue u sameeyo ama oo wax income oo faa'iido u sameeyo waxay noqonaysaa credit side cashka ayaa ah mid laba ahan haddii company-ga oo cash gacantiisa soo galo in aad ku register garaysid debit side haddii company-ga oo cash ka baxo ama qasnada company-ga ee cash laga bixiyo in aad ku register garaysid dhinaca credit so afartan shay ayaa ugu muhiimsan in aad u fahantid sida wax ugu fahantid debit and credit waxaan usoo noqonaa tusaalaha maanta ahan iyo waxa noogala baahan yahay tusaalaha maanta ayaa noogala baahan yahay inaad marka ugu horeysa aan ogaano account title-ka buugga title-ka aan ku register garanayn midda labaad ayaa waxaa noogala baahan yahay inaan ogaano naturalka wuxuu yahay natural ahaan iyo wuxuu yahay shanta qayb ee 5 billion account naturalkiis muxuu ka yahay midda saddexaad ayaa ah midda noogala baahan yahay in debit iyo credit aan soo kala saarno cashka credit muu noqonaa billigan debit muu noqonaa inaan soo kala saarno marka saddex su'aal ayaa noola baahan yahay marka tusaalaha marka ugu horeyso ee saddexda title ayaa meesha ka muuqata ayaa ah in marka kow aan soo saarno account title so number koowaad meesha waxaa ku qoran billing in company-ga ay soo iibsatay gurigaas number 2 waxay ku soo iibsatay cash so account title wuxuu noqonaa in aan marka hore ku register garayno gurigii ay company-ga soo iibsatay iyo cash oo ah lacagtii company-ga ay bixisay so Excel-ka aan ku soo register garaysana sidii uu update u noqdo so inta waxaan rabnaa inaan ku soo register garayno guri oo ah waxay company-ga soo iibsatay iyo cash oo ah waxa ay ku soo iibsatay save so marka account title waxaan soo ogaanay in ay tahay shayga company-ga soo iibsatay iyo waxay ku soo iibsatay so account title book waxaan ku qoraynaa guri iyo cash midda labaad ayaa noola baahan yahay ayaa ah naturalka ah guriga iyo cashka maxay yihiin marka loo eego shanta qayb ee asaasiga u ah 5 billion of account so guri and cashka labadoodaba waxay hoos imaanayaan asset laakiin guriga ayaa ah non current asset halka cashka ay tahay current asset so guriga ayaa wuxuu noqonaa non current asset halka cashka ay tahay current asset so naturalki waxaan kala qaadnay inuu guriga uu ka mid yahay non current asset cashkana ay tahay current asset waxaa kaloo haddana aan rabnaa inaan ogaano debitka and credit guriga sidiisaba muxuu yahay ma debit side ba ma credit side cashka ma credit side ba ma debit side so aan dib ugu noqonaysa aan u fahana cashka waxaan hore usoo sheegnay haddii company-ga oo cash gacantiisa soo galayso in aan ku register garaynin dhinaca debit side haddii company-ga ay qasnadiisa ka bixaysa cash waxaan hore usoo sheegnay in aan ku register garaynayno dhinaca credit side so tusaalaha hadda ayaa ah in company-ga ay soo iibsatay dhismo qiimihiisa ugu fadhiya 50000 50,000 marka waxay noqonaysaa company-ga in lacag ay ka baxdo maadaama company-ga ay lacag ay ka baxayso waxay noqonaysaa in aan ku register garayno dhinaca credit side-ka
so waxay noqonaysaa in halkan kiridaan kusoo goyno so mid kale dib aan u noqono qodobka koowaad oo ahaan expense always debit so haddii company-ga ay soo iibsanayso hantidaas marka maadaama company-ga ay hantida soo iibsanaysa qarashka lacagta ka bixisa waa inay ku register garaysaa dhinaca debit side maadaama ay tahay expensive so debit side-ka ayaa markasta ahaan asset and expensive marka meesha ku aragtay markasta waa inaad debit ku register garaysaa so waxay noqonaysaa totalkeena in meeshan aan ku register garayno debit marka haddii aragto tusaale kan oo kalaan oo ah company soo iibsaday shay lacag ama bixi ama muddo cayima lacag dib ugu celiyo waxaa isticmaali kartaa nashqadan oo ah account title-kina marka hore soo shid kadib aa ogaatid naturalka oo 5 billions waxay kasii tahay in current asset ama current asset waxay ka tahay ama kadib aa ogaatid debit and credit waxaa kaloo samayn kartaa in aad u register garaysid sida kale ee loo yaqaano T account account ayaa ah mid xisaabeedka loo isticmaalo inaad marka hore aad sawirtid calaamada T aad ku qortid qaybtan ku qoratid debit oo DR ka soo gaabtid intana aad ku qoratid calaamada CR so billing so marka hore waa title hore waa building waa inaan soo qaadanaa billing oo qiimihiisa uu yahay 50,000 dhinaca kale waxaan haysanaa cash waxaan sheegnay maadaama cashka qasnada ay shirkadda ka bixayso inay credit tahay so waxaan ku qoraynaa cash so cashka waxay noqonaysaa 50,000 so markii waa inaad transaction aad soo xirtaa so waa inaad ku soo xirtaa 50,000 intana waa inaad ku soo xirtaa 50,000 so marka hadda buugga waxay noqonaysaa in aad ku register garaysay lacag isla siman 50,000 oo ahaan dhul qiimihiisu ku fadhiya 50,000 oo cash ahaan inay ka baxday qasnada shirkadda la soco tusaalaha saddexaad ee aan soo dayn doono insha Allah maalmaha soo socda waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.